قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. كتابك الملخص المفيد لأحكام الصيام أيا وحير إنه قهرين وحن كبلابينا صفحة أما بقى سغالية تمنات iyo qaybta saddexaad ka mid ah tobanka dambe fadligeeda waxaa ku jira tobanka dambe ee ramadaan fadliga uu leeyahay dhowr maaragtay arrimood arrintii saddexaad oo fadligiisa ka mid ah tobanka dambe ثالثا saddexaad fiiha ay fi العاشر الأواخر tobanka dambe waxaa ku jira ليلة القدر habeenka ليلة القدرka la ilaaha ku jira وليلة القدر خير من 1000 شهر kun bilood bay ka khayr badanta soo ma kun bilood waa imisa sano 80 sano iyo 3 bilood iyo 83 bilood 80 iyo 3 sano 80 iyo 3 sano iyo xoogaa bilood weeyaan 4 bilood miya okay 80 iyo 3 sano iyo adigu bilood 4 bilood 3 bilood ma garanay taqriiban adu muhiim yaad u malaynaysid cumrigiisu inuu gaarayo 80 sano allahu aclam sax inaa cumriganagu 80 sano gaari doon ilaah baa og laakiin habeenkaad leylatulqadar cibaadaysato waxaa la mid tahay adigoo 80 sano ka badan noolaaday cibaadadaas allah hadduu naga aqbalo subxaana wa tacaala lama dhihin 80 sano ee la egta ee waxaa la yidhi khayrun min 1000 shahr way ka khayr badan taha la yidhi intay ka khayr badan mise waa xisaabta soo maa 80 iyo 3 sano iyo 4 bilood ma sha allah marka intaasi waxa weeyaan khayrun min 1000 shahrin baa la yidhi tusaawi 1000 shahr haddii la odhan lahaa kun bilooda u dhigantaa ayaa wax lagu dadaalo ah laakiin khayr baa la yidhi khayrun baa la yidhi khayrun waa يعني وثيقة التفضيل أفعل تفضيل خير أخير بيت أصل كذي مركب كخير بنت 1000 شهر مركب واحد لقود دالو ويان habeen kaasi laakiin waa yar yahay anaga xaggeena saacada yar daqiiqada yar weeyaan ramadaankeena ku dhex jirtaa tobanka dambana la filayaa marka fiiha laylatul qadr qadri ma macna qadri huwa min at-taqdir aw min al-qadari yani culimadu way labadaba way ku fasiraan taqdiir in loo jeedo habeenka la qadaro ahjaash iyo barwaaqada iyo khayraadka la qadaro لأنه فيها يفرغ كل أمر حكيم بالله سبحانه وتعالى قالوا إلى هذا ما هنا ومن القدر بمعنى العظمة هبينكي ويناي ويان وحولك ما يسنشر أدب وين تاي فضل جيدا إلهي سبحانه وتعالى وكش يا سورة أم بقول سودي شيء وكش يا مركبين كاسي أيا كشرة طبعا كدنبع ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسولك سهل كأوير ويان تحروا بفتح الراء بضم الراء تحروا بارا أي رسولك عليه الصلاة والسلام هذا وقد انتهى ليلة القدر هبينك ليلة القدر كواحد كدونتين في العشر الأواخر طبعا كدنبئ أي رسولك يرى من رمضان كمده طبعا كدنبئ ورمضان وهي أيضنا ليلة القدر في الأوتار أقرب tirada isdheer bay u dhowdahay min al-ashfaaci tirada labada ah inay waata witrka gasho inay kis iyo maaragtay ama labo tirada waa isdheerta ama waa simanta ma garanaysaa marka tirada dheerkay ay ku jirtaa ay u badan tahay min al-ashfaaci tirada laba jibaaran oo kowda iyo 22 23 25 27 29 noocaas bay maarta ayaa la aad looga sii rajaynaya ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسولك هلك أوير ويان تحروا ليلة القدر ليلة القدر كواحد كدونتين وكبارتين التحرية إدلال بأباهنتاي في الوتر من العشر الأواخر ترى أسدار أو طبعا كدن بها من رمضان مش رمضان كمده طيب ولا تختص ليلة القدر ليلة القدر كل معها بليلة معينة هل هبين أو كريئة في جميع الأعوام سنوين كدن بل تتنقل
waxaa saxa inay guurguurayso oo fatakunu fii caamin sanad waxay noqonaysaa leylata 27 habeenka 27aad maalan wa fii caamin aakhar sanad kalena leylata 25 habeenna waxay noqonaysaa 25 tabacan limashii'ati illaah ilaahay doonitaankiisa iyo xikmadiisa ayuu raacsan wayadullu calaa dalika arrinkaa waxaa ku tusinaya qowluhu sala allahu calayhi wasalama ilaahay rasuulka halka uu yidhi iltamisuuhaa ka doondoona fii taasicatin tabqa 9 oo bisha ka hartay 9 ramadaan markay ka harto imisuu noqonayaa 21 waktigii nabiga 21 maray noqotay oo xadiis saxiixa ku soo arooray nabigu yidhi waxaan arkay subaxa ay noqon doonto leylatul qadarka wa ana asjudu calaa maa'in watiin anoo ku sujuudaya dhoobo iyo biyo anoo ku sujuudaya subaxii 21aad ayaa cirku inta habeenkii da'abay nabigu assalaamu calaykum saxaabad uu yidhi bay waxay arkeen wejigiisa dhoobo saaranta abu saciid al-khudri waa 21kii bay ahayd buu yidhi habeenkii laakiin dadku goormay ogaadeen maray dhammaatay salaatulfajr waxaa weeyaan waa dhammaatay leylatul qadarkii laakiin calaamadii nabigu u sheegay habeenkii ay arkay calaamad ay leedahay laakiin calaamadaha loo sheegaahay waxaa la ogaadaa markay tagto ka bacdi waxaa loogu talagalay marka qofku inuusan calaamadaas kale fiirsano dadaalo laakiin markii maaragtay calaamadii aad aragto waxaad arkaysaa way tagtay qoraxda soo bixitaankeeda iyo waxyaalaha calaamada la sheegayo waxay ku xiran tahay waa maray tagtay weeyaan saxaabadana saasay ku ogaadeen 21 habeenkaas way noqotay inay socotay ku tusinaysaa iltamisuuha fii taasicatin tabqa waltamisuuha fii saabicatin tabqa 7 bisha ka hartay nabigu ka doona ayuu yidhi calayhi salaatu wasalaam fii saabicatin tabqa fii khaamisatin tabqa 5 ayadoo bisha ka hartay ka gooba tirada isdheer ma garanaysaa qaala fi lfatxi ilbaari imaamu xaafid ibn xajar alcasqalaani kitaabka fatxulbaari wuxuu ku yidhi arjaxu laqwaali hadallada waxaa ugu xoog badan annahaa fii witrin inay witr tira isdheer ku jirto oo min alcashri alakhiir 10ka dambe ah wa annahaa tantaqil inayna maaratay soconayso gurguuraysaa maarta habeenba meel ay gelayso intaha kalaamu waxa weya taas nusuusta saasa lagu jamcin karaa qaarba meel bay ku sheegeen marka jamca nusuus waxay tahay waa wada sax laakiin waa soconaysaa weyaan macnaheedu habeenba meel bay ka imaanaysaa marka dadka qaarkood habeenka 27aad uga dhigti masaajidka waa buuxsamayaan tiradu bisha dabadeedu ma iskhilaafaysaa dhammaadka bishu hadday 30 noqoto iyo hadday 29 noqoto ma iskhilaafaysaa aakhirkeedu waa maya sugnaanaysaa leanna wax la dooni karay wey tiradu waa isla ekaanaysa mar kastaba aakhirkeeda raad ku yeelan ay mayso nacam laakiin waxay raad ku yeelan karaa haddii laysku khilaafo bisha goormay dhalatay soo sax ma haddii laysku khilaafoba bishu goormay dhalatay witerka dhan waa madaxu isla gelaba lama ogaan karaba marka laftigeedu waa mushkilad kale aan laftigeeda witerka in la ogaado haddii bisha laysku khilaafo bilowgeedii hore laysku khilaafo inay way kala dunaanaysaa qaala shaacir ninbaa shaacirkan wuxuu ku soo koobay bisha yani leylatul qadarka fadligeeda iyo asagoo ka hadlayo amaa qad khasana allahu bishahrin ayima shahrin amaa qad khasana allahu ilahay wuxuu dhab ahaantiin uu kala yeelay bishahrin bilbu ilahina uu kala yeelay bishan ramadaanka ummadaha kale ma heli jireen ma soomi jireen maya masuum baa waajib waa lakin bisha ramadaanku sida saxiixa ummadan bay ku khaas tahay ayima shahrin bil maxay ta alla weynaa bil weyna yani waa bil oo maarata bil aad u weyn baa ilahin uu kala yeelay weyaan bishahrin bil baanu uu kala yeelay anzala araxmaanu allah raxmaanka uu soo dejiyey fiihi asaga dhexdiisa ashrafa dikri dikrikay ugu sharafta badnaay qur'aankii fadliga badnaay ayaa ilaahay soo dejiyey subxaanahu wa tacaala wahal yushbihuhu shahrun bil u eg miyaa jirta bisha ramadaanka wa fiihi leylatu lqadri asaga oo leylatulqadr dhexdiisa ahaaday bil maarta shabihi kalaysa miyaa jira bil ay leylatulqadr kudhex jirto miyaa bil u ekaan karta waa maya fakam min khabarin saxa bima fiiha min alkhayri fakam min khabarin alla xadiis fara badanaa saxa oo ansaxay bima fiiha waxa dhexdeeda ahaaday habeenkaasi oo min alkhayri khayr ahaaday khayr fara badan bal nusuusta qur-aanka rawaynaa waxaanu warinay can huqaatin huqaad baan ka warinay annahaa tudlabu fi lwitri in witrka tirada isdheerka in laga doono maartay habeenkaas fadliga badan faduubaa laanta janno waxay u sugnaatay limri'in qof
oo yadlubuhaa doonaya fii hada alcashir tobankaa ka doonay qofkaasaa barwaaqo iyo maaragtay wanaag u sugnaaday fa fiiha habeenkaa dhexdiisa ayaa tanzilu alamlaaku malaa'igtu ay soo degtaa bilanwaari nuuriyaal iyo walbiri wanaag bay la soo degaan waqad qaala wuxuu yidhi hiya allah jala wacalaa salaamun hiya iyadu waa nabadgelyo xataa madlica alfajri ilaa waa u ka beryo wayo dhammaantood waa nabad weeyaan alaa fadakhiruuha warjiifka ka kaco fadakhiruuha kaydsada u kaydsada khayrkii yani fadakhiruu haa salaantaas iyo khayrkaasi kaydsada bishaasi inahaa min anfasi dukri kayd la kaydsado kan uu qaalisan weeyaan fakam min muctiqin fiiha inta la xoreeyo fara badana min annaari laga xoreeyo walaa yadriya isagoon ogeyn naarta laga xoreeyo alla fara badana ee khayrka maarta u kaydsada wallahu aclam